aha inaan gabadha ugu weynaa wax ku baro aad ii soo dhiibtid sidii bay eedda igu kaxaysay eedda sidii bay igu kaxaysay sidii bay ii keentay gurigeedii tuuladii adigu wax saasana imay barine malcaamad uunbay igeyso iskuul iyo waxbarasho saasa malcaamadana hal waqti baan aadi jiray xaafadda uunbaa ka shaqayn jiray adigu sidaan ugu jiray noloshii ayaa maalinkii dambe waxaa jirtay islaan dariskeena ah islaanta dariskeeda waxaa imaaday nin weyn oo adigu curadkeedii ahoo nin aad u weyn islaantuna islaan waayeelay ahayd marka nin weyn adigu 50 jir meelahaasoo curadkeedii islaantaa waayeelkaabaa imaaday wuxuu ka imaaday xagga iyo Kenya marka ninkiiba adigu reerkana aad baan isugu fiicnayn oo eedada isugu fiicnaa daris baan ahay marka waxaa dhacday inuu eedadii ku yiri gabadhaana u baahanahay gabar baan rabay marka gabadhaana eedada u tahay igu dar eedaday waxay la hadashay aabahay waxay ku tiri hadda gabadhii nin lacag laho maasha Allah dibad ka yimiyo lacag iyo xoolo badan ku siinaya ayadana nolol fiican gelinaya soo doontay marka waa inaad siisaa adiga aniga la siinaya marka waxaa dhacday inay aabahayna dee aad iyo reerkayga u farxeen maadaama reer miyo iska ahoo aan dee adduunyana haysana iska ahaayeen aad bay ugu farxeen arrinkii waxay dhaheen haddii gabadhii meel fiican noo gelayso annagana aan dhaqaalo keenayno waa wax aad loogu farxo marka sidii baa ninkii la igu soo dara adigu xoogaa yaroo sunuuda xoolaha baa reerkaygii la siiyey marka waxaa dhacday inuu eedaday ugu sheekeeyay inuu Nairobi idejinayo oo nolol fiican uu igelin doono laakiin arrintu sidii ma ahane ninkiisu ii waday wuxuu i keenay meel qaxoontiina aan ahayn caasimadiina aan ahayn oo aad u kulul oo tuulo ahaana oo adigu xuduudka Kenya ah guriga uu i keenay qolba la geeyay hal sariir oo bir ka samaysan baa dhex taalo oo hal qof loogu talagalay halkan iska joog baa la yiri waynu tagi doonaa gurigan degi doonaa buu yiri maalinkii wuu iga tegay islaam baa guriga joogtay iyo 2 caruur ay dhashay show islaantu waaba islaantiisiiba nik markaa kii ku qabeel soo siimaanahay waa kii qabeel ay soo siiyey a'uudu billahi waxaa joogtay islaan uu qaba asagu iyo 2 caruur oo ay dhashay oo 2 wiil ah markaasuu ii soo waday islaantii buu ii keenay iyadana wuxuu ku yiri gabadh iidana waxaan kuu keenay gabadh ciidan oo boy saamal ku shaqaysa taariikh gabadh ku shaqaysa kuu keenay ciidana adigu sidaan ayaamo ugu jiray meesha maalin walba ilaaha waynu tagi doonaa waynu bixi doonaa gabadhiina ii lahayd dee habar yar kaale shaqadan baro oo qabso oo halkan gal oo jikada halkan laga maraayo anigana dee aan yaabanahan isleeyahay maxaa qaldan ninkii aaway dee arooskii iyo gurigii iyo wixii maxaa qaldan maxay islaantiina waxay leedahay jikada gal oo dee gabadh ciidan in loo keenay iyadu u malaysaaba adigu sidii hawshu u socotay anigii wax aan ku hadla aan garan waayay ninku iima yimaado markuu guriga soo galaba aayar buu iska galaa maxaan ku dhahdaaye qolka islaanta ku jirto adkaatay kuma qaniinin ilaa markaa way qaniinin way jirtaa dee jid baaban isla soo marnayo hotel baanu kusoo degnayoo meeshii tuuladii markaan kasoo tagnay meesha caasimada ahayd ee Soomaaliya kamid ahayd aan diyaaradda kasoo raacaynay hotel buu na geeyo qaniin la'aan ma jirto laakiin marka guriga timid qaniin ma jirto ma fi qaniin
ما فقنية ده نكي بنو فيسبوك يسو دجيو ما سجى سلامته وإسلامه ونو سيدات هاي ولا لو هو إذا فاهم إنكراد ويبتشي عجيب adigu ku inkirsay waa guriga islaantiimi هو بين كرايبة hay ya يعني أرنت سيدة وقعتي أنا أبانا هاي حاقل دن علي هاي وهم بي مالك دم إسلامتي ورسته وتري waa telefoon soo dhow يلا راكي يعني أو ممكن محد سكوتيه hay ذاكورة نكن ده ولا يسوع جوريو ولا يوصل دريا نكن ده إنه جورسنا يا جوري إدتشنا يبو يبو كأنا يا أديك أنا إن أدولاش تهيبو يبو شيء يا مركز إسلامتي بدشي أنا أركيا نكى أدو مركي وتلفون بقدرت جورج على إسلا جلي أدو واحد نقصه وده هدلي بكل يوالي هالشيء نكى أنا وحوك داد عيده إن إذا قفتني aniga la igu soo daray laakiin anigu aanan dan ka lahayn aana adiga kugu soo wareejiyay adiguna ku shaqayso oo sidaad rabtid ka yaa cajiib danyana ma jirto dhaca arrintii ugu jiray oon yaabanahay oo naagtiina dee markii hore way isbedeshay oo sidii wax qalbiga oo miyuu lagu soo siiyey oo ma lagugu meheriyey bay dhexdhehaysay markii dambe oo iyadoo isbedeshay oo habbii ay gurigii kasoo baxday ayay maxaan ku irahdaa waxay keentay markan anigu meelan u dhaqaaqa ma aqaano markaas waxay dhahdaa aroortii markaan soo kaco fiiri maxaad iska dhaqdhaqaysaa diracii jikada halkaa dirac u isticmaal waxay keentay dharkaygii iyo boorsidii aan watay oo dhan inay qolkeedii geysato inay anigii dhahdo waa inaad diracan hawl baad qabanaysaaye labis loogama baahna meeshane dharku way kaa dhamaanaya ciduna dharkuu gadamaysa dadkeenina meeshan ma joogaan halkaa dirac waa inaad xidhnaataa cajiib ninkii gabadhii ku heshiiyeen hal dirac baa lagu siiyey hal dirac baa lay siiyey ha sidaan sidii ugu jiraan u yaabanaan leeyahay dee eedo anigu diracan ma xidhnaan karo meesha waa kulayl oo waan ku dhidido oo markaan isdhaho aan soo qoyo maxaad maanta dhan iska dhaqaysaa markaa ma ogti inuu islaanta qabo ma ogti marka maya weli ma ogaane waxaanu qabaa inay walaashii tahay baa weli aaminsanahay xaggeed ku ogti markaa inuu seexdo adugu maadaama guriga imaado islaantuu la seexdaa marka aniguna waan fahmay gabadh aad u yar baanahay marka waan la yaaban waxaa leeyahay waxaa keligaa meeshan lagu seexiyey oo mararka qaar waxay ila soo seexata gabadh maxaan ku dhahdaaye aanan luuqadeedaba garanayn oo naagta wax isku yihiin oo naagtu soomaali dadaan ahayn baa la dhashay isku hooyo yihiin oo macnihii waa soomaali laakiin af soomaaliga caadiga ahayd aan ku wada hadlayno naagta wax isu yihiin iyo anigaa meesha isla seexano oo maqaayad iyadu ku shidata magaalada naagtanaan umaba is afgaranayno oo halkaasay way timaadaa fiidka xilli dambe agtayda iska seexataa asaguna suu usoo socdaba aayar meelahaasu fadhiistaa cashaa la siiyaa marka dambena gurigiisaasuu galaa dee anigu waan yaaban waxaa isleeyahay ninkii walaashii maxaa isla seexinaya haddana waxaa isdhahaa malaha dee way iska sheekaystaanoo markaad igu seexatid bay naagtu ilmaha la seexataa sheekadii way isu kay qaban wax ii sheegana waan la ahay meesha cidna kama garanayo aad baan isula hadlay aniga dhan waan madoobaaday waan rafaaday stress baa igu dhacay naagtii waxaan arkayaaba dee markan si toos ah kabaha iigu gashatayoo maanta dhan ilaa halkan ha istaagin oo ninkii markuu soo galay idhahaysa qolkaaga gal oo anigii maxaan ku idhahday markan aad ii kantarooleyso oo dhaqdhaqaaqayga oo dhan la socoto oo maanta dhan iridaa kursi la fadhido oo anigii aan mar biyaa lasoo dhaaminayaa meel halkaas biyihii soo dhaaminayo dee reerkiiba aan jaariyad caadiya u noqday baan dareemay maalinkii dambe asagiiyo maxaan ku idhahdaye soo galay baan ku dhegay waxaan ku yiri fiiri haddii meeshan aad keentay aad hawshan aad wadatay iyo inaan anigu xaafadan ka shaqeeyo anigu dee uma imaane waxaan u baahanay inaad xaafadayadii iyo dadkaygii meeshaan garanaya igu celisid maya arrintani maya dhib ma laha anigu qarash la-aan baan ahay oo hadda hawl baan ku jiraayo
maxaan ku idhaahdaaye arooskeeni iyo alaabtii gurigii baa noo diyaarinayaa iska samir waan iska xishooda maadaama nin aad u iiga weyna ahaa anigiina dee gabadh yar ahaa waa iska qajilay waan iska aamusay waan iska tegey adeegeygii hawshii waan iska qabsaday maalinkii dambe wiil yaroo islaamtu dhashay baa isoo ag fadhiistay wuxuu igu yiri horta adigu maxaad isku tihiin aabbahay markaas waxaan ku yidhi aabbaha kee weeyaan yuusan abtiga ahayn markaasuu yidhi abtigay maahane waa aabbahay oo islaamtanina maxay ku tahay waa hooyaday oo dee ninkana waa aabbahay islaamtanina waa hooyaday adigu maxaad noo tahaa marka ilmaha yaro markaa way i barteenoo way ila kakaftamaan oo markaas yani waa isyar fahanay oo igu soo dhawaadeen laakiin awal hore waxaan cuntada jikada intaan kariyaan ku diyaariyaan qolkayga iska geli jiray cajiib oo wali castaniye hey adkaatay oo anigii waaga igu bariyey waan fadhiyey waan istaagay markaasaan yaqiinsaday dee wixii igu dhacay oo dhan inay tahay wax kula talagala oo aan meel qaldan soo galay markii baan fahmay anigii waan argagaxay marka dukaan yar oo aan adeega iyo dukaanka uun baan magaalada dhanka aqaanayo ay dhahdo lacagii ma dhiibtee dukaanka gabadha joogta orod waxaa kasoo qaad bay dhihi jirtay islaantii baan u tegey markaas waxaan ku yidhi eeday qof dhibban baan ahay markaasay ugu tiri maxaa ku dhibayso gabadhii uu maxamuud keensaday soo ma tihido uu qaraabada ahaayeen waxaan ku yidhi eeday waan dhibanahay ninkaas aniga uu khiyaamay uuna isoo guursaday inuu maxaan ku idhaahdaaye naa qabana imuu sheegin inaa meeshan aan ka shaqaynayo waxaan oo dhan haddaan fahmay inuu asagu reerkan leeyaho ilmahan dhalayna haddaan ogaaday marka eeday anigu dadkaygii iyo magaalada iyo meesheedina ma garanayo inaad icaawisaan rabaa adigu meesha islaantii gurigiibay iga furtoo soo galbay tiri halka fadhiiso ninkiibay wacday ninkiibay u yeertay ninkiibay meel gaara ugu tagtay islaanta qof naxariis badan bay ahayd waxay ku tiriniyo gabadhan yara miskiinta ah ee aad islaantaadii iyo dadkan ugu sheekaysay inay qaraabadaadii kasoo kaxaysatay ciidan ahaan laguu soo siiyey maxaa dulmiga intaa leeg aad uga gelaysaa ilaan adigaba gabdho way kula dhasheenoo ehel iyo dumar way kula dhasheenoo waadna qabta haddana inaad dhashaad sugaysaayo inaad gabadhan yartaasaa u gasho arrintu ma aha marka wuxuu yiri waan qaldamay marka hadda gabadha yartaa waan dejinayaa gurigaan u kiraynayaa waan dejinayaa marka wuxuu yiri guriga haddaysan qolkaasa loo sariir iyo alaab baan usoo dhigayaa gabadha yartaahi dad ma taqaano marka magaaladana askar baa joogta luuqadna ma taqaano marka haddii aan guri kala dejiyo in lala baxaa halisa in la dhibaateeyaa halisa in la dilaa halisa marka qolkaas ay degan tahay haddaan alaab usoo dhigayaa sariir usoo dhigayaa qolkeeda ha deganaato adiga islaantii wada degaya aniga islaantii baa wada degayna adkaata haya adiga siman baa la wada dejinayaa guriga ku socon anigiyo malaa'ikaana la wada dejinayaa waxaa dhacday marka gurigii baan adigu sariir yar buu qanxu meelaha ka keenay meeshii buu iisoo dhigay halkaagaa deganoo waa la yiri sidii baan islaantii dabka ugu jiraa marmar baa la ii imaanayaa markii aan ogaaday markaana ogaadayba inuu naagta ninkeedii yahay baaba qaracan ba ii shidmay macnihii awal hore waxaan u malayn jiray nin iyo walaashii oo dadkan iska sheekaysanayo oo qosolkan iyo farxaddan iyo waxaan ma dareensanayna laakiin arrintii markaan ogaaday markiibaaba noloshii ciriiri igu soo noqotay meeshu waa meel kulul dayrka dhexdiisaa lasoo dhigtaa gogol halkaasaa lagu qoslaa lagu casheeyaa lagu farxaa anigii qolkiibaan sariirtii dhex fadhiyaa uur waa igu soo baxay stress iyo isla hadal iyo nolol xumo aroortii marka waagu baryana dabkaasa albaabkaa la igu soo garaaca usoo tamaan dabka galbaa la ilmihiiba iskuul aadaya cunto diyaari maxaan ku dhaha habeen oo dhan radhinkii naagta halkaasay ku wada qoslayaan oo ku wada farxayaan ana keligii baan halkaa iska fadhiyaa
عجيب كوما يمعد مركا إيما يمادو مركا لا حتى أوغاتي markaan xitaa ogaaday iima imaanayo keligay baa qolka iska jooga نو قنية نو وحبا nooqani waxba ma jiraan halkaasaan anigu adigu markii dee aan soo soconay hoteelka ku jirnay adigu waxay tahay ma garanayeen adigu iyo marmar uun dee xilliyada duhurada iyo marmar baa layska soo maraayo laysoo afuristaayo sidee tahay laysoo dhahaa laakiin dee waqti dhan layma siiyo maxaan ku idhaahdaaye layguma sii mashquulaba دور كبال وحيو يا هيا adigu sidaan ugu jiray هيا sidiisaan ugu jiray maxaan ku idhaahdaaye uurkaygii baa soo dhawaaday ilmaan dhalay noloshii baan weli ku jiraa islaantii baa maxaan ku idhaahdaaye weli igu aan la deganahay ayadaa waxaan karinaya raashinka iyo adeegii waxaan karinaya iisoo qiyaasto gurigeedu yaalaa waxaa intaa kari maanta qadada waxaa kari biro quraacda waxaa samee baa lay dhahaa asagii markaan ku dhego almar hadduu iisoo galo aan dhab siiyo aan dhaho noloshan kuma jiri karo ilmaan dhalay anigu hadda waxaan doonayaa inaan maxaan ku dhahdaa hooyo xor aan noqdo inaan ilmahayga waxaan rabo uu samaysan karo wuxuu leeyahay maxaad u baahan tahay ilmaha caanihiisa faadimaa kuu keenaysa waxa alla waxaad u baahan tahay gurigaasaad ka cunaysaa waad adag daran tahay anaaba noloshan ku geliyey oo heerkaa ku gaadhsiiyey عجيب هاي adigu isla hadal iyo rafaad iyo silicsan ugu jiray maalinkii dambe inankii yaraabaa iga xanuunsaday أنا كذا واحد وصدق ilmi yaraabaa iga xanuunsaday هاي ilmi yaraad buu u xanuunsaday cidu daawo dhakhtar iima geyso markaan dhaho ilmi yarkaa wuu xanuunsan yahay kaal dhakhtargee ayadaa dhahaysa waxaa ma hayaana cunug yarkaa wuu iska qandhan yahay waa iska hargebe qandhadana hadday ka ba'aysaa iima soo galo cunug yar siduu yahay ma dhaho halkaasuu halka guriga deyrkiisaasuu iska dhex seexdaa inta joodari loo soo dhigo cunto cashada loogu soo diyaariyo aniga cunugii yaraabaan qolkii kula dhex jiraa kula rafaaday dhakhtar cidu iima geyso maalinkii dambe islaantii baan u tegay waxaan ku yidhi ilmaha yarka aad buu iiga xanuunsanayaa dhakhtarna ninkii wuu ii geyn la'yahay marka islaantii dariska ahayd baa wacday oo ku tiri war cunuga yarka ah sakaraadka ah naqasku ku dhegan yahay dhakhtargee ilmi yaraa markaan dhakhtarkiisaa u tagnayba wuu iga saqiira إنا لله وإنا راجعون امس الماء ضلك كسقيري وأنا كسعة الماء هذا سقيري كسعة ولا marka waxaa dhacday maalinkii dambe aad baan markii ilmihii yaraana aan waayey aad baa iskula hadlay meelaan marana aana aqoonin dadkana ay dad isiiyan yahay oo islaantan xitaa dariska ah ay caawinayso ay igu tireeda anigu waxba kuuma qaban karo ninkanu dee isagaa ku keensaday meesha anagu afaarahaana ma geli karno hadhow haddaan afaaraha gal anagaa dhib nooga imaan kartaa marka mana ku naqaano dee meeshaadaa joog maalinkii dambe waxaan sameeyey adigu gabdho kale oo xaafadda ayaguna daris ahaa baan iska baranay markaas waxay igu dhaheen halkaasaa adigu xuduudkii iyo ku yaalaan maalinkii dambe waxaa dhacday gurigiiba inaan intaan iyagoo hameenkii hameenbarhkii markay ahayd intaan maxaan ku idhahdaaye gaas qaatay oo gurigii oo dhan ku bilbilaan dab qabadsiiyey gurigii oo dhanba dabbaan qabadsiiyey hameenkii dambe si gurigan bal waxaan isiri xalka ugu dhowaad heli kartaaba bal gurigani ha gubto oo meesha lagu kala yaacee ilaan adigii wax ku caawiyana ma helaysid oo dadkii waa in iswada taqaano isku faamil ah marka waxaan isiri xalka ugu fudude malaha aad show ama laysku kaa dhaafin kara ama aan lagugu dili karaba guriganba gub habeenbarkii reerka iyagoo iska hurdaan birjikada iyo dhuxusha iyo baan isticmaalayo gaaskii dabka lagu shidi jiray baan intaan qaaday baan jikadii oo dhan gaastii ku bilbilay baan kibriidna qabadsiiyey ayaguna way hurdaan أنت حد شكله أتكاتي مركا هاي gurigii oo dhan baa isla ololay gurigii adigu cabaar markii ololay oo maxaan ku dhahda qololkii ololkii uu soo gaadhay baa dariskii iyo dadkii ku kaceen ayagii waa kaceen anigu awalba waan fadhiyey oo dee
iridaaban sii taagnaayo waxaan islaa jikada markuu qofkii ugu horreeya banaanka u baxaama banaankaaban taagana dee markaan arkay wiilkan aan la hadlaya meesha iskale walaalkay wax yar baan rabaa inaan ka hadlasho waxaan aan noo qabato waa wax khatar youtube-ka ma furatido lacag ka samaysid waa showyo khatar oo adduunka waxa laga daawada abaa sheekada ha dhamayso youtube waa leeyahay soo daawo hayay ku soconaano marka arrintii dariskii iyo dadkii baa isku soo baxay marka waxaa la yidhi xaafadii oo dhan baa isku soo baxday ninkii iyo naagtii adigu waa gubteen weliba naagtiiba aada usii gubatay ilmihii yararka ahaa labadii ilmood waa la badbaadiyey naagtiiyo ninkiina dhaawac aad u weyn baa gaaray anigii banaankaan u cararay alxamdulilah gurigii oo dhan horta wuu gubtay meeshii dhul banaan bay noqotay adigu markii gurigii gubtay baa xal la helay anigii xaafado kaleaan kala tagtagnay naagtii meel buu geeyey anigiina islaantii dariska ahayd baan isaga tegey ninkii meeshiibuu guri ka dhidhistay aniga waxaa iray halkan anigu ku laabanayo cid gubteen lama oga markaa lama oga lama garanayo anigu dee meel uu dabkeena ka kacay ilaa iyo hadda maysan fahmin inaan anigu qofkii gubay ahay bala ku ciyaarda marka maxaan ku dhahdaaye alxamdulilah mar haddaama lay fahmin waxaana laygu fahmi waayey dee caawa birjikadii baa dabkaa noolaa iyo birjikadii marka adigu waxyaalo kale unbaa layska dhaadhiciyo in birjikadii nooleyd iyo qadar ilaahay oo meel kale ka timi adigu kolley wax caddayna waa laygu waayey aniguna qof naxsan oo dee hurdo kasoo boodayoo naxsan baan iska dhigay layma fahmin adigu meeshiibu reerkii guri qol ah markiiba looga dhisay anigiina islaantii baan la joogjooga markii dambe magaalada geeskeeda kale meel ah buu qol iga dejiyey adigu markiibaa naf isoo gashay markiibaa nafisay alxamdulilah ha idhi markiibaa raashin iyo wax la iisoo dhigay anigii markiibaan qoftee adeeg iyo wax soo adeega lay dhaho noqday markiibaan dareemay xornimo aan arrintii aan sameeyey alxamdulilah waan ku guulaystay oo qof nool ahoo dee meel degan oo la ogyahay baan markii noqday sidii meeshii sidaan u deganayn adigu maalin walba islaanta igama daba hadhee subaxda waagiisu baryo ayadoo dhaawaca oo dhinac dhanka gubatay bay ag taagantay subaxa waagiisu baryo islaanta way gubatoo baryo dhan bay custaal ku jirto aniguna aan raaxaysanayo qubaysanayo labisanayo waan ka nasta islaantii lagula qabay ma gubatay gubatay oo dhinac dhan baa gubtay guriga ku shiishay ma ay karsatay maraqeedii de waxaa rabay labadaba inay kow isla dhahaane way nasiib badnaayeenoo dariskii iyo dadkii baa usoo gurmado waa la badbaadi adina dhitaan baad rabtay kow inaan kaga siiyaan rabi acuudu billaahi isagiina muxuu noqdaa bismillah asaga wax saasa ma gaarine ayadaa show dee naaguhu waxbay meelaha ku xasxasaystaanoo inta isdhahaysay dahab iyo wax meesha kala soo baxbay way dabkii ku hadhayo asagu markiiba uu ka booday iyada aad u gubatay adigu ciyaalkii yaryaraana adigu waa la badbaadiyey marka waxaa dhacday dee dadku waa meel iska kullo markiiba haddana xilli dee dadku iska socsocdeen unbay ahayd oo isla markiiba ilaahayba anigu laakiin banaankaasaan taagnaa waa aamusnaayo qofkii ugu horreeye qayliye markaan maqlaan ana qayladii ku darsoomay laakiin markii hore oo dhan banaankaasaan taagnaayo dabku jikadii iyo markuu qolalkii gaadhay baa ilaahay usoo diray oo ilmihiina waa soo boodboday ilmo roonroonay ahaayeenoo dee adigu cunug 15 jir iyo cunug 10 jiray ahaayeen marka ilmihiina way soo boodeen laakiin islaantaasaa unba ugu daraydoo dhaawac badan gaaro ayadoo muddo 3 bilooda dhakhtarka taalay waxaa dhacday markii intay 3 bilooda ay dhakhtarka taalay baan anigii nafisay noqday isagiina aaba jaanis ii helayo markiibuuba ii yimaaday inuu qol idejiyo uu keenay meeshii gurigu ka gubtayna reerkii boqol uga dhistay iyo jikadiisii wixii reerkii islaantii halkii baa la keenay
laakiin islaantii gurigii lay dejiyey waa kan maalin walba waagu markuu beryaba kabahay soo xidhanaysaa gurigeyga imaanaysaa dugsigay dhakhtar ka soo baxay ma islaantii intaa dhakhtar ka soo baxay ilow abaar qaniya ku haysay markii guriga islaantii xanuunsatay maxaa samaysaa adigu islaantii markay xanuunsatay dee inaan asagii xidhiir la sameeyo oon dhoo meel idejiyo oo gurigii idejiyey oo qaniyadii iska badatay oo aan anigii qubays iyo dharkaygii aan labis helay oo aan labistay oo dharkii inaan xidho dhar xirto oo lacag yar aan ka qaatay oo shoobin soo samaystay oo aan nafiso dee qof caadi aan kusoo noqday guriga tahay dee walana waxaan ahaa qofaan umashiiba ka qubaysanoo cunugii yaraa ee ka saqiiray iyo murugtii iyo rafaadkii iyo wixiiba aan ka qubaysanoo iska rafaadsanoo dayacan baan ahaa marka inaan dabkani wuxuuba ii noqdayba shimbir buu ii noqdo il buu ii furayo markaa jaanis baan helayaan xitaa ninkii aan kula xaajoodo oon kula hadlo oo aan xidhiir ku samayno adigu markay dhakhtarkii kasoo baxda gurigeedii kusoo laabatay meeshii bay sheekadii ka bilowday inay dhahdo meeshan qol kale ka dhis waa inaad soo celisaa reerka anigii aroortii imaanaysa meeqaa lagu siiyey asagii ay dhahdo adeega lacagta ii dhiib anaa usoo adeegaya oy marka dambe qudaartii adeega iyadoo wadda ii keento oy lacagtii iga goyso haddana halkiibu rafaadkii iiga bilowday adkaatay islaantu kaa wax ku soco islaantu ninka aad bay u maamulayso markii dambena waxaan ka war helayba macnihii ina isaga xoolahan iyo waxaan uu shaqadan iyo waxan iyo hantidan iyo waxan oo dhanba ay iyadu leedahay oo markii horeba ay iyadu guursatay isaga markii dambe waxaa dhacday adigu sidaan sidii ugu jiray uur kale aan yeeshay ilmaan dhalay waxaa dhacday marka sidii oo kale unbay xaaladda kusoo noqotay cunug baan dhalay haddana mid kalaan dhalay 2 cunug baan dhalay marka waxaa dhacday inaan dhaho mar walba aan dhaho islaantana gurigeysa iga imaan uu dhaho islaantana guriga noloshan iyo kiradan iyo waxaanaad la bixinayaba iyadaa iska lehe adaa fudude waad furan tahay uu idhaho adaa fudude waad furan tahay waad furan tahay meeshaad caano iyo nolol iyo ilmahaan caano uga keensanaysa oo nolol ka raadsanaysa aday kuu taalaa aniga waad iga furan tahay haddaadan islaantani amarkeeda aadan qaadanayn adkaatay kadib maxaa samaysay adigu muddo 2 jeeru i furay mar walba sidii unba dhibkii ii haystaa waxaa dhacday marka 2 jeer buu i furay haddana markii 3aad uu i furo furinkii sidii bayba dalaaqdii iiga dhammaatay maalinkii dambe wuu ii yimi wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan kugu noqdo nin soo guurso isa soo marxal markaa kadibna nolol fiican baan ku gelinayaa maxaan ku idhahdaa guri baan ku dejinayaa Nairobi baan ku rarayaa iisoo laaba hadda waayo islaantii hadda waayeel bay sii noqotay dhinacna waa tii ka gubatay dhinaciiba maxaan ku idhahdaa ay tabcaan ka noqotay oo aysan ka dhaqaaqi karinba haddoo neerfihii iyo wixiibaa isqabsaday adkaatay maxaa ku yidhi nin soo guurso kadibna iska soo ku guursaday nin soo guurso hadda maxaan ku dhahdaa iisoo laabo marka ayaa guursatay haye waayahe waa diyaar waxaan ku yidhi waan kuu soo laabanayaaye aniga iyo carruurtayda na kaxee Nairobi nagee horta noloshan iyo halkanba naga kaxee wuuna soo kaxeeyey wuxuu yidhi waayahe lacag buu i keenay bax Nairobi tag gabadh ay qaraabo yihiin buu yidhi guri u raadi Nairobidii buuna keenay guri baan ka kiraysay guri baa naloo sii qabtay meeshii baan degnay meeshii markaan degnay asagiina wuu naga daba yimid kula soo degayba maya ilamuu soo degin adigu waa iska soo dega maalinkii oo dhanna wuu noo imaadaa habeenkiina wuu naga tagaa ilkaa wuu kaa daadiya markaa maya runta sheegaaste waa anaa ogolaanayn soo maaha adigu calaaya kulli xaal hadda ninkii wuxuu ileeyahay nin soo raadso oo isa soo maxallaq oo iisoo laabo aniga hadda 2 carruuraan haystaa
haddii aan diidana ma garanayo dee nolosheedu siday noqonayso oo Nairobi anagu kiradiina iskama bixin karno dadna ma naqaano nin laftigiisa asagaaba niman telefoonkayga soo siiyo dhaho nimankaa shukaansoo la heshiiyo maxaan ku idhahdaa ay soo baxalqo ii soo laabo haddaan si fiican kuu dhaqanaya marka arrinta hadda halkaasay taagan tahay inuu ninkii 3 jeer ku noqo oohinta ku noqo qosolka ku noqo marka gabadhani hadda way ku jirtaa asxaabta team adkaatay bay ka mid tahay talo fiican bayna doonaysaa asxaabay si fiican ula soo taliya ninka gabadha gumaystay rafaadiyay luuqi halkaas talada